qisadan maanta aan soo qaadanayno waa qisadii Aasiya bintu Muzaaxim. waa haweenaydii Fircawn. Aasiya waxay ku noolayd qusuurta ama qasriga ugu weyn waqtigaasi jiray, viilada ugu weyn, ugu quruxda badan. waxa u adeegayay dad badan ayaa u adeegayay. waxay ku noolayd nolol sare ayay ku noolayd, wax ka dhinnaa ma jiro. wax walba oo jeceshahay horteeda ayuu yaalay. waxayna ahayd haweeney aad iyo aad u qurux badan, maskax badan, aragti dheer ayay ahayd. haweeneydaasi waxaa guursaday odaygii Fircawn ee kibray, ee qooqay, ee ilaahnimada sheegtay, yidhi ana rabbukum alaclaa. Fircawn wuxuu iloobay inuu makhluuq yar oo daciifa u yahay, oo candhuf laga abuuray. ilaahay nebi muuse ayuu u diray Fircawn. waxaa lagu yidhi, muusow idhab ilaa Fircawn innahu taqaa. Fircawn u tag, wuu qooqay, wuu kibray. faqul hal laka ilaa an tazakkaa. Fircawn may kuu gaadhay oo ma u noqon rabbigaa, ma istaharo yeeli, gaalnimadan ma ka bixi iyo shirkigan ayaa lagu yidhi. weliba wa ahdiyaka ilaa rabbika fatakhshaa. ilaahaagan kugu hanoonin oon ku bari, waad ka cabsan marka rabbiga. Fircawn ilaahay waxaa yidhi fakadaba wa casaa uma adbara yascaa. wuu beeniyey, wuu caasiyey, wuu daba jeediyey, uma aabba yeelin dacwadii iyo diintii. wuu madax adkaa, xaqu diidanaa. dacwadii nebi muuse iyo haaruun ay wadeen waddankii bay soo gashay, way ku faaftay Masar. gurigii Fircawn dad badan baa islaamay. waxaa islaamay ninkii la oranayay mu'minu aali Fircawn. waa nin xaashiyadiisa ahaa, wasiiradiisa ahaa, qaraabadiisa ahaa, oo guriga qasriga ku dhex noolaa. kow, waxaa kaloo islaamay nin u adeegayay isaga iyo haweenaydiisa oo guriga ka adeega, oo iyadana la oranayay Maashita bintu Fircawn, tii u adeegaysay hablaha Fircawn ee timaha u feedhaysay. waxaa kaloo islaamay haweenaydiisa Aasiya, haweenayda Fircawn ayaa iyaduna islaamtay. axibbatii fillaah, dadkii warka qaadayay, dadkii wax basaasayay ayaa arrintaa maqlay. Fircawn iyo wasiirkiisa difaaca Haamaan ayaa arrintii la gaarsiiyey. waxaa loo sheegay inay dacwadii nebi muuse iyo diintii u waday inay gurigiisa ay soo gashay. Fircawn u xanaaqay, wuu isqaadqaaday, wuu kibray. ninkiiba u yeedhay guriga ka shaqaynayay, wuxuu yidhi diinta ka bax, haddii kale labaan kuu kala goyn, waan ku dili. ninkii waa diiday, diintiisu ku adkaystay, kadibna Fircawn wuu dilay. intaa kadib haweenaydiisu gurigay ka shaqaysa iyaduna. hablahan Fircawn ayay timaha u feedhaa. maalin maalimaha ka mid a, iyada oo timaha u feedhaysa ina Fircawn ayaa waxaa dhacay, garfeedhii baa ka dhacday. garfeedhii soo qaadays tiri, bismillah bay tiri. tii yareed way yaabtay, waxay tiri, ma aabbahay baa allah la yidhaahdaa mise wax kalaad haysataa? waxay tiri, may, aabbaha ma aha, rabbi wa rabbiki wa rabbu abiiki allah. rabbigii aniga iyo rabbiga adiga iyo rabbiga aabbahaa waa allah. tii yarayd gabadh yar oo madax adag bay ahayd, gabadh yaroo sida aabbaheed waalan ayay ahayd. Fircawn baa u tagtay, waxay tiri, aabbo, gabadhanna sidii odageygii ayay diintii ka baxday, ilaah aan adiga ahayn ayay caabuddaa. odaygii Fircawn ahaa u xanaaqay, gabadhii yarayd buu soo qabtay, wuu xidhay, wuu garaacay, wuu dhibay si ay diinteeda uga baxdo. tii yarayd way diiday. rabbii wa rabbuka allah bay ku tiri, rabbigay iyo rabbiga waa allah. wuu ku adkaystay inuu dhibu doonayaa, inuu diinteeda ka bixiyo ayuu doonayaa. way diiday. sida awgeed wuxuu yidhi, hala ii keeno disti weyn oo naxaas ka samaysan, hala ii keeno. waa loo keenay, saliid buu ka buuxiyey,
gabadhii waxa uu ku yidhi meeshaas ayaan kugu tuurayaa. way qosashay oo may aaba yeelin. waxay tiri naftani waa mar may baxdaa. ilaahay baan u tegi. waxa uu doonayaa inuu dhibo, siduu ku dhibi lahaa ayuu raadinayaa. laakiin wuxuu ogaaday Fircoon haweenaydani 5 caruur ah oo agoon ah inay korinayso oo gurigii ay joogaan ayuu ogaaday. sida awgeed waxa uu yidhi caruurteedana soo qaada. 5tii caruura ayaa ciidan loo diray. waa la soo jiiday, waa la hor keenay. caruurteedii markay aragtay way ku dhegtay, way dhudhunkatay, way urursatay. kii ugu yaraa bay qaaday, naaskay afka u gelisay, way naaskay nuujinaysaa. intaa kadib Fircoon waxa uu ku yidhi caruurtaasaa lagu tuuri ama diinta ka bax. way diiday. Allahu rabbii bay tiri, ilaahay ayaa rabbigaya, ilaahay ayaa rumaysnahay, ka gaaloobi maayo. kadib Fircoon waxa uu yidhi wiilka ugu weyn caruurta soo qabta, ku tuura. wiilkii ugu weynaa caruurta ayaa la soo qabtay. kadib iyadoo oo arkaysa uu ooyayo uu baryayo hooyadii ayaa lagu tuuray saliiddii karaysay. kadibna lafihiibaa hoos u hadhay, haragiisiibaa dusha soo maray ka yar. waa si ay u naxdo, waa si ay u argagaxdo, waa si ay diinta uga baxdo. way adkaysatay. kii labaad ayaa la soo jiiday. sidaas leeg wuu ooyey, wuu baryey, Fircoon buu baryey. laakiin Fircoon ma naxariisto. Fircoon wuu qabtay, ku tuura buu yidhi. kii yaraana dabkii iyo saliiddii karaysay ayaa lagu tuuray. beerkii baa dusha soo maray, lafihiina way dhacdhaceen. kii saddexaad sidaas leeg. kii afaraad sidaas leeg. kii shanaad oo ugu yar oo naaska ay ku aamusiinayso oo ka qarinayso ayaa laga soo jiiday. lilmada ka daadanaysa, afkiisana waxaa ka sii qoyan caanihii hooyadii. waa la soo jiiday, wuu ooyayaa. hooyadii buu qabsaday, timuhu qabsaday. xataa farihiisa waxaa laga arkayay timihii hooyadii. kadibna kii yaraa ayaa la soo kaxeeyey. in lagu tuuro markii la doonayey ayay oyday. kadibna ka yar ayaa hadlay. waxa uu ku yidhi yaa ummaah isbirii fa innaki cala alxaq. hooyoy sabir oo adkayso, xaqa ayaad ku taagan tahay. adiga xaqa ku taagan, ha ooyin, adkayso ayuu ku yidhi. kadib kii yaraabaa lagu tuuray saliiddii karaysay. way arkaysaa 5teedii caruura oo lafahoogii ay hoosta mareen oo haragoogiina dusha u marayo. maxaad u malayn? maxaa ka naxdin badan? laakiin diinteedii haysataa umay aaba yeelin waxaasoo dhan. axibbatii fillaah, markii iyadii la soo qaaday ee la doonayay in lagu tuuro ayaa waxay tiri Fircoonow hal shay ma ku weydiistaa? haaba ku yidhi weydiiso. waxay ku tiri waxaan ku weydiisan inaad lafahayga iyo lafaha ciyaalkayga intaad ururisid meel qurata aad ku aastid ayaan ku weydiisan doonaa. subxaan allah, iimaanka wakaa. Fircoon wuu isqaadqaaday, gabadhii meeshii buu ku riday, sidii buu yeelay, uu gubay, uu ka falaxashay khalaas. isagoo oo quslaya, isagoo oo sanka taagaya, isagoo wax ismoodaya ayuu gurigii dib ugu soo noqday. waxaa maqashay warka gabadhiisii, xaaskiisii ayaa maqashay. waa mu'minad, iimaankeygay qarsanaysaa. way ka naxday, way ka murugootay. camalkan raallika ma aha, ma jecla, ma soo dhoweynayso. way ooyeysaa, way adkaysanaysaa, way sabraysaa. kadibna way ishayn kari weyday, way dhawaaqday. waxay ku tiri Fircoonow, Fircoonow waad madax adag tahay. alwaylu laka maa ajra'aka cala allah. hoog baa kuu sugan, waad madax adag tahay Fircoonow. gaalnimadu way kugu fog tahay Fircoonow. waxa uu ku yidhi, wuu la yaabay, ma adigana waxaa ku helay waalidii gabadhii heshay oo kale ayaa kugu dhacday? maxaa ku helay buu ku yidhi. waxay ku tiri maa bii min junuun, ma waanli, walaakinii aamantu birabbi alcaalamiin. laakiin ilaaha caalamka oo dhan rabbi u ah ayaan rumeeyey bay ku tiri. waxa uu ku yidhi wallaahi waa dhiman, waan ku dili, waan ku gogoyn, waan ku silcin ilaa aad ka gaaloobaysid ilaaha muuse aad ka gaaloobaysid. waxay ku tiri waxaad doonti samee, anigu rabbiga ka gaaloobi maayo marna Fircoonow. Fircoon markuu arkay diinteeda sida u haysato,
ay u adag tahay waxa uu doonay inuu sasabto midig buu kaga yimid bidix buu kaga yimid dahab badan buu ku agdaadiyey wuxuu ku yidhi bal toobadkeen bal ii soo noqo bal in yar cadhada isira deji waxaasoo dhan uma aaba yeelin kadib fircoon wuu xanaaqay wuxuu yidhi qabta jebigeyga qabta saxraaga masar geeya saxraaga xagga geeya labada lugood iyo labada qacmood tiirku xidha buu yidhi kala fogeeya oo saxraagaasi ku silciya cadceeddaa jiifiya waxa uu yidhi hala silciyo lugna meel ugu xidha lugta kale meel ugu xidha gacan meel ugu xidha gacanta kale meel ugu xidha haraad ku dila gaajo ku dila bila biyo bila cunto ka dhiga 3 cisho sida ha ahaato maalintii koobaad cadceeddii kululayd saxraagii lama degaanka ahaa waa haweeney guri weyn oo qurux badan ku soo kortay nicmad ku dhex jirtay barwaaqo ku jirtay weligeed aan sili arag haweeneydaasi ee sidaa ahayd ayuu u yimid maalinkii koobaad markaasaa waxa ku yidhi aasiyay ma fikirtay ma noqotay ma isa saxday waxay ku tiri may aamantu billaah ilaahay baan rumeeyey adigana waan kaa gaaloobay maalinkii wuu ku daayey maalinkii labaad sidii silaag maalinkii saddexaad sidii silaag maalinkii afaraad ayaa waxa uu yidhi uqtuluuha dila weliba sida loo dili dhagax weyn dusha kaga keenay buu yidhi oo ku soo tuura gebigeyga madaxaba baabi'iya markuu ka yaabay iimaankeyga sugnaanshaheega siday xaqa ugu adag tahay ayaa waxa uu yidhi madaxeega gebigiisaba baabi'iya waqtigaasi ay dhagaxa kor u qaadayeen ayay ducaysanaysay waxay tiri rabbi ibni lii cindaka baytan rabbi ibni lii cindaka baytan fi ljanna wanajinii min fircawna wacamalih wanajinii min alqawmi alظaalimiin ilaahayow agtaada guri iga dhis jannada ilaahow iga dhis ilaahayow iga badbaadi fircawn iyo camalkiisa iyo qoomka dhaalimiinta ah dhagaxaasi waxaa la yidhi markuu ku soo socday ee lagu soo tuurayey ilaahay waxa uu tusay qusuurta iyo jannada iyo nicmadda loo diyaariyey ayuu ilaahay tusay markaasay faraxday markaasay qosashay isna wuu ag taagan yahay markaasuu yidhi alaa tacjabuuna min junuuniha waalida naagtan haysa miyaynu arkayn waanu cadaabaynaa way qoslaysaa iyaduna kadibna dhagaxii ayaa ku soo dhacay laakiin waa waqti ruuxdii ay ka baxday naftii ay ka baxday iyada oo faraxsan iyada oo bishaaraysanaysa iyada oo arkaysa jannada ilaahay meesha uga diyaariyey ayay dhimatay radiyallaahu canhaa kadibna dhagaxaasi wuxuu ku soo dhacay jirkeega oo meyda oy mar hore naftu ka baxday may dareemin dhagaxa culayskiisa iyo dhibaatadiisaba walaalayaal qisadaa cajiibka oo ilaahay inooga warramay ilaahay waxa uu yidhi وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين وضرب الله إلهي وحا كدغي مثلا ما هو إلهي كدغي للذين آمنوا كوي إيمانك لغا هلي مؤمنين تأها إلهي ما هو كدغي تصالو إيا قصة أي وحكو قاتان امرأة فرعون هوينيدي فرعون تاسا عبرة إني غفرا تاسا وانا إني غفرا تاسا هدا دوني سنة إذا فكرتان فكرة إني غفرا إذ قالت مركا أيتري رب ابن لي إلهي يو إيقدس عندك أكتادا بيتا قري في الجنة جنة ونجيني إيقبت بادي إلهي من فرعون إيقبت بادي وعمله عمل كيس حن ونجيني إلهي إيقبت بادي وإيقكري من القوم الظالمين قومك الظالمين تأه إلهي ودورتيد هوين عقل بدن أو خير بدن أي أهيد آسيا وحي دورتي أي علماء ليهم الجار قبل دار يجار لنقن انتين الدارت أين الدورين رب ابن لي عندك أكتاد إلهي ويقدس بيتري بيت قري في الجنة جنة حق أغسى ريسة أي إلهي ويديستي نبي صلى الله عليه وسلم وحاويري خير النساء العالمين دمرك الدنك وحا خير بدن مريم بنت عمران نبي عيسى هو يدي هي خديجة بنت خويلد خديجة هوين دي النبي هي فاطمة إن محمد صلى الله عليه وسلم هي آسيا هوين ذا فرعون نبي وحاول عليه الصلاة والسلام رجع وحا إن بدن أيا كامل قاري أو لما يسترنبو النبي يري
walam yakmul min annisaa dumarka yacni diintooda iyo caqiidadooda iyo caqligooga wuxuu dhammaystirmay nebigu waxa uu yidhi aasiya haweenaydii fircoon iyo maryam bintu cimraan caaishana inay dumarka kale ka fadli badan tahay ayuu nebigu sheegay sala allahu calayhi wasalam. walaalayaal waxaan ka faa'iidaysanaynaa qisadaasi doorka weyn ay dumarku ku leeyihiin diinta iyo dacwada sida u dadaaleen rag uma ahayn dumar badan oo ka qur'aanku sheegaya ilaahay baa suuradda idinkaga warramaya sida haweenaydaasi diinteeda ugu adkayd mabda'eega ugu adkayd. haweenaydaa kale ee maashada u fiirso 5 caruura ay dhashay ayaa naarta horteeda lagu shubayaa oo saliidda lagu karinayaa ayna u aabayeeleen maxaa yeelay caqiidadeeda diinteeda ayay ku faanaysaa axibbatii fillah. maanta dad badan oo Yurub iyo Mareykan tagay $100 bay siisteen diintoodii $100 baa la siiyo kiniisadda ayay galeen. waxaan ka fahmaynaa qisadaasi adduunkan inuu yahay maalimo waa la tegi aawe fircoonka ummadda dili jiray xaguu ku dambeeyey dadkaas oo dhan way rawaxeen dadkaas oo dhan aakhiro ayay tageen. axibbatii fillah adduunkani waa meeshaa yar ee gaaban waa laga tegi aakhira loo socdaa sida awgeed qofku waa inuu sahay qaato mabda'a ugu muhiimsan caqiidada ugu muhiimsan diinta ugu muhiimsan waa inaad ilaalsatid diintaasi ilaahay ku soo gaarsiiyey. dadkaasi waa lagu soo dhibay adee laguma dhibin alxamdulillaah. aabbahaabaa muslima hooyadaabaa muslima awowgaabaa muslima waddan islaam baa joogtaa khayr badan ayaad haysaa aadaankii baad maqlaysaa diintii baad haysataa wax kugu qasbaya gaalnimo ma jirto. sida awgeed waa inaad mabda'aaga iyo diintaada iyo caqiidadaada aad adkaysatid ayaa loo baahan yahay. khayr allah ina siiyo iyo xalaqad kale oo inoo soo socota qisasun fi lqur'aani alkariim la socod wacan. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.